magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa si isdaba joog ah uga socda kulamada lagaga areensanayo dhamaystirka maamul goboleedka SSC Qaatumo kaasoo ay yeelanayaan madaxda maamulkaasi iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota dawladda federaalka Soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale baarlamaanka maamul goboleedkaasi SSC Qaatumo hogaamiyaha maamulkaasi SSC Qaatumo Cabdulqaadir Cali Firdhiye ayaa kulan waxa uu la qaatay golaha dhaqanka SSC Qaatumo waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray sida loo si ambaqaadi lahaa habu socodka shirka la filayo inuu maanta ka furmo magaalada Laascaanood waxaana ugu dambeyntii hogaamiyaha maamul goboleedka SSC Qaatumo iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka isla qaateen in si isku mid ah looga qayb qaato dhismaha maamul goboleedka SSC Qaatumo sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka SSC Qaatumo ayaa iyaguna waxay yeesheen shir degdeg ah arintaasi ku saabsan waxaana ugu dambeyntii ay go'aamiyeen in shirka maanta ka furmaya magaalada Laascaanood uu yahay mid sharci ah isla markaana loo baahan yahay in laga qayb qaato walow ay jiraan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka SSC Qaatumo ayagu arintaasi si weyn kaga biyadiiday shirkana ka baxay kale garad jamac garad cali oo xalay asugu warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in waxa uu 15 sano ka dagaalamay ay ahayd in tala meel kale laga keenay lagu dhaqo dadweynaha reer SSC Qaatumo waxa uu sidoo kale carabka ku dhiftay in shirka ka furmaayo maanta magaalada Laascaanood uu san ogeyn meel looga tashaday waa kan garad jamac garad cali oo arrimahaas ka hadlaya waxa aan diidanahay waxa weey waxaan la isla ogeyn aan dhamaystirayn khatar gelinaya wixii dadkani ay lahaayeen qiimaha faraha badan ugu fadhiyay dhibka faraha badan loo soo maray dadka badani ay u shahiideen in maanta khalkhal la geliyo oo waxaan la isla hubin iyo waxaan la isla ogeyn iyo waxaan laga tashan lagu dhex tuuro shirka maanta Laascaanood laleeyahay waa laga wadaa anigu meel laga tashaday ma ogi meel wax la isaka weydiiyay ma joogin meel lagu go'aansaday ma aanan fadhiyin dabcan Soomaaliduna waxay tiraahdaa reer maad hadaan ka hore iyo ka dambe iyo ka dhexe isu baaqin way kala lumaan taasi ma muuqato mana ayan dhicin waana waxa keenay khalkhalka iyo dhibaatada dadkani meesha ay joogaan maantana waxa ay ku soo gaareen midnimo ku timid wada tashi Soomaalidu waxay tiraahdaa hadaad aragto arrin dhamaan weyday ama meesha wax ku jira waxaan ku jirin baa la gelinayaa ama wax ku jira laga saaraya waxaanu leenahay dadkani waxay wax ku yihiin wada tashi bay wax ku dhisteen wada tashi bay kaga gudbi karaan xaaladda ay ku jiraan waxa ay go'aansadaan iyo maamulka ay qaataan baana cid walba ay ku khasbanta hase yeeshee anigu wixii aan shalay diidanaa ee ahayd tala meel kale la iiga soo raray laygu dhiqi maayo dadkayga loogu talin maayo ee aan 15 sano ka dagaalamayay maanta ma ogolaan karo reer walaalahaya oo dariskayga ah inaan ku sameeyo kamana mid noqon karo waa walaalahayo waa dariskayaga dan baanu ka leenahay duruufahayaga isku xidhan uma quudno in aanu niraahno annaga idinka xulanayna idinka yeeranayna idinku talinayna idin joojin mayno si kastaba ahaatee magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool ayaa maanta la filayo inuu ka furmo shirweynaha lagu dhamaystirayo maamul goboleedka SSC Qaatumo shirkaas oo ay garwadaan ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya